argagixiso waxa qofka garaacaya dadka iyo guryaha ku garaacaya madaafiicda la dhacayaan cidna u naxariisanayn kaasa waa ku xukumayaa khasab baan kugu haystaa ama inaan sidee ugu soo noqon karaa magaalada isagoo oo saa u garaacaya buu isu leeyahay wadan dadkan qabso oo tahay isba inuusan xukun iyo inuu xukumo hunguri ka qabin ninka dadka saa u garaacaya aan u naxariisanayn marka madaxweynaha sheeganaya iyo ciidankiisa aan naxariista lahayn aad moodo inay garaacayaan cid aan dubbo ugu oolo waxay wadaagaan ma jirin madaxda gobolka Soole Laascaanood dhexdeeda ayaan joognaa marka magaaladan dagaal baa ka bilaabmay maalintii Isniinta oo bishu ay ahayd shantii waxa weeye bisha labaad 2023 iyadoo oo marka warbixintii la soo deynayay guddiga iyo ismadu ay isla garteen lagu heshiiyey iyo cuqaasha iyo waxgaradka gobolka inta aan warbixintiiba la soo gudbin oo wixii lagu heshiiyey laga shireeyay aan la gaadhin ayaa dagaal lagu bilaabmay aroortii dagaalkaas marka waa maalintii dhimashada iyo dhaawacyadu ugu badnaayeen waxaa magaalada lagu soo qaaday weerar aan loo miidaandaynin oo madaafiic iyo hub yar yar iyo mid weynba loo adeegsanayo guryaha la duminayo oo masaajidda ay rasaasta laga duweyn oo dhakhtarka laga duweyn guryaha badankooda rasaas baa ku taala ama ha weynaato ama ha yaraato wax dumay waxay jingada la tagtay masaajidada qaar ay rasaasti ugu gashay oo qaar ay dhexdooda ku dhaawacmeen cusbitaalkii oo ay jiifaan dadkii dhaawacyada ahaa oo iyo dhimashadii oo dhakhtarradu ay u gurmanayaan oo lagu garaacay madaafiicdii ay ku dhacday masaajidii iyo macaahidii oo sidoo kale ah marka waxaad moodaa rasaastaas iyo hubkaas oo qaarkood aad u muuqdo in la hagayo oo meel loogu talagalay lagu garaacayo ayaa haysta magaalada waxaan marka la yaabanahay xoolihii baa ku dhimanaya oo rasaastii la tegaysaa gawaadhidii baa badankooda wixii magaalada dhex taagnaa rasaastii ay gaadhay oo ay ku soo dhacday waxaad moodaa marka waxyaalahan la yaabanahay waxaa ka mid a dadkii magaaladii waa cidla iyadoo dhimashadii iyo dhaawacu inta ay aad uga badnaan lahaayeen laakiin waxaa ilaahay ku sahlay guryihii iyo dumarkii iyo carruurihii ay ka yaaceen iyo dadkii maatada ah dadkii waayeelka ahaa oo qaarkood ciyaalo yar yar oo 2 sano jira oo la lugaysiinaya ayda oo gacanta la hayo aan biyo iyo baad midna loo wadin waxyaalahan aad uga naxay ugu dhibta badan bay ka mid tahay ilmo yar oo 2 jira oo gacanta la hayo oo meel cidla ah la marinayo oo gaari iyo meel uu ku tubanaya midna jirin meel toga iyo bohola lagu sii wado oo la leeyahay waxaan u lugaynaynaa meel 30 kilomitir jirtaan u wadnaa marna tuurta lagu qaadayo marna la lugaysiinayo oo ilmo yar oo 2 jir oo raad dhaqaajiso raadka isagoo tigtig la soconaya oo la leeyahay intaas oo cabaar hadhow aan ku qaadayaa markaan xitaa aragnay gaari aan ku qaadnan anaga laftaydu aanan arag haynin marka arrimaha ugu yaabka badan bay ka mid tahay marka waxa aanu leenahay dagaalkaas guryaha dumay oo de reer dhan oo caa'ila aan ku dhacay aad horeyba loo sheegay oday weyn oo isagii carruurtiisa ay ku dhex dhacday oo isagii dhintay gabadh gurigii markuu ku soo dhacay iyadii dhimatay laakiin dadkii kale ilaahay ka badbaadiyey ilmo yaroo dhasho xoogaa la eego gabadh ah oo yar iyaduna oo saas oo kale gurigii yana ugu dumay oo yana dhimatay rasaasta soconaysa waa rasaas aan loo miidaandaynin marka insha Allah tacaala oo naxariis darro ay ku jirto marka waxyaalaha yaab kale waxa ka mid ah nin kule waa ku xukumayaa khasab baan kugu haystaa ama inaan sidee ugu soo noqon karaa magaalada isagoo oo saa u garaacaya buu isu leeyahay wadan dadkan qabso oo xukun marka waxaan la celin karaynba oo joogsanayno ogolaanayn kuwii guryahooda la dumiyey iyo kuwa carruurtoodii la dilay iyo kuwa waalidiintood dhinteen kuwaasaanba ogolaynba in lagu soo noqdo ay leeyihiin kuwada noolaan mayno marka insha allahu tacaala waxaan leenahay marna la sheegayo la leeyahay waa argagixiso waxaa qofka garaacaya dadka iyo guryaha ku garaacaya madaafiicda la dhacayaan cidna u naxariisanayn kaasa ah laakiin kan miskiinka gurigiisa joogay la garaacaya argagixiso maaha waxaan leenahay insha allahu tacaala mana xukumi kartid meel aad garaacaysid oo aad dishay oo aad madaafiic la dhacayso aadan u naxariisanayn oo guryahooda aad duminayso dadka qaarkood markaad la hadasho wuxuu leeyahay gurigu ha iska dumee faraha ka qabo iska dhisan doonaa waxba iska daayo waxba ha ka nixina guriga nagu dumay qofka dhintayna aasa halkaas la maraya marka waxaan leenahay insha allahu tacaala waxay ila tahay isba inuusan xukun iyo inuu xukumo hunguri ka qabin ninka dadka saa u garaacaya aan u naxariisanayn marka madaxweynaha sheeganaya iyo ciidankiisa aan naxariista lahayn aad moodo inay garaacayaan cid aan dubbo ugu oolo waxay wadaagaan ma jirin ama aan xitaa noolaba ahayn sidoodu garaacaya inay hunguri ka qabin bay ila tahay inay halkan xukumaan oo mar dambe ay ku soo noqdaan
marka insha allahu tacaala intaasaan kusoo ururinaya. Assalaamu